Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waa barta YouTube-ka ku leenahay. Caawa waxaan idiin haynaa warar kale oo fara badan. Wararkeena waxaa ugu horeeya ninka la yihahdo Abiy Ahmed oo la sheegay inuu xanuunsanayo. Warar fara badan oo la isdhex maraya suuqa ayaa waxay sheegayaan in Abiy Ahmed uu tacbaan yahay. Dadka qaar waxay leeyihiin waa la qarinayaa ama dibadda loo qaaday. Marka wararkaas mar ka dambeysa soo tarayaan. Dad badan oo xog warar sirdoona fara badan ayaa waxay leeyihiin Abiy Ahmed waa xanuunsan yahay. Dadka qaarna waxay leeyihiin Yurub ayaa loo qaaday, dadka qaar waxay leeyihiin waa lagu daweynayaa gudaha, dadka waxay leeyihiin waxaa loo qaaday Eritrea. Marka Abiy Ahmed xaaladiisa mar ka dambeyso waxbaa ka soo taraya, inkastoo hay-adaha dowladda Itoobiya ay qarinayaan in Abiy Ahmed uu xanuunsan yahay. Dad kaloo fara badan ay sheegayaan inuu Abiy Ahmed uusan xanuunsanayn oo warar la isla dhex maray ay tahay. Marka Abiy Ahmed wuxuu shoog ka qaadan leeyahay dhibaatadii ka dhacday Itoobiya, weeraradii faraha badnaa oo ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida, iyo dhibaato kale oo iyadana ka jirta gudaha Itoobiya, Oromiya iyadana weerar ku hayso, Tigreega oo dhinaca kale weerar uga hayo. Abiy Ahmed waxaa la leeyahay wuxuu ku jiraa xaalad shoog ah. Dowladda Itoobiyana xaaladeeda ma degno. Muddo fara badan ayaa laga cabanayay inay dhibaato ka jirto dalka Itoobiya, iyadoo ugu dambeysay weeraradii ururka Al-Shabaab ay geysteen xuduudda dowlad deegaanka Soomaalida ay la wadaagto gobolka Boqol. Dad fara badan oo arrintaas ka hadlayaan waxay leeyihiin Abiy Ahmed waa xanuunsan yahay, laakiin waa la qarinaa. Dalka dibaddiisa ayaa loo qaaday, diyaarada qaas ayaa lagu qaaday. Qaarkood waxay leeyihiin Faransiiska ayaa la geeyey, qaarkood waxay leeyihiin Eritrea la geeyey, qaarkood waxay leeyihiin wadamo kale oo Yurubta ama Carabta ayaa la geeyey. Marka warar aad u fara badan la isla dhex marayaa. Waa idiin soo sheegi doonaa meesha xogta rasmiga ah, laakiin hadda wararka la isla dhex marayo ugu dambeyntii waxay sheegayaan in Abiy Ahmed xanuunkiisa ay wax ka jiraan. Dhibaato kale oo fara badanna ay soo gaartay, xanuuno oo maskaxda oo fara badanna inuu qabo ayay sheegayaan dadka qaar. Waxaa kaloo iyadana la sheegayaa in magaalada Muqdisho iyadana haddii warkaas dhinacaas aan u gudubno dhanka Soomaaliya, magaalada Muqdisho iyadana waxaa la sheegayaa in madaafiic lagu garaacay madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo maanta la ansixinayay golaha wasiirada, iyadoo codka kalsoonida loo qaaday si nadiif ah. Cod kalsoonida u heleen baarlamaanka federaalka Soomaaliya u siiyeen golaha wasiirada Xamse Cabdi Barre oo soo magacaabo dhowaan. Dadka qaarna waxay leeyihiin dhaliilo fara badan ayaa loo jeedinaya golaha wasiirada, maadaama aysan ahayn golaha wasiiradii ugu tayada badnaa markii laga reebo ra-iisul-wasaarayaashii hore Roble iyo Kheyre ay ka quality fiicnaayeen wasiirada hadda jiro. Dadka qaar waxay leeyihiin golaha wasiirada ee hadda magacaaban waa golihii wasiirada ee dadka lagu qancinayay, ma aha golo wasiiro oo shacabka u adeegi doono. Dhibaatada fara badanna ayaa lagala kulmi doonaa, laakiin baarlamaanku wax shaki iyo wax shooga kamaysan qaadin arrintaasi. Si nadiif ah ayayna u ansixiyeen. Maxaa la leeyahay hadda ugu dambeyn gacanta ayay ku dhigeen. Howshoodii dib ayay u qabsan doonaan golaha wasiirada. Cabsidii iyo qalqalkii maalmihii lasoo dhaafay ee la sheegayay inaysan golaha wasiirada aysan baasmari doonin, meeshaas oo lagu hor istaagi doono way ka baxday meesha. Marka intii oo ansixinta ay socotay ayaa waxaa lagu soo garaacay madaafiic dhowr ah madaxtooyada dhinacyadeeda iyo ilaa iyo Xeryaale iyo isgoyska Florence inay kusoo dhaceen madaafiic fara badan, taasoo qalqal fara badan iyo dhaawac dad u geysatay. Dad shacban iyo dhibaato fara badan ay kasoo gaartay la sheegayo. Xaaladda Soomaaliya ayaa mar walba aan ahayn mid ay toos u degan, dhibaatadana ka jirtana ay mar ka dambe soo tarayso. Marka waa idin la wadaagi doonaa mar walba wixii kasoo kordho. Waxaa kaloo iyadana la sheegayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay safiirka dalka Qatar ee u fadhiyo magaalada Muqdisho ayuu wuxuu ku qaabilay madaxtooyada Soomaaliya, isagoo kulamo gaar ah la yeeshay, isagoona kala hadlay xiriirka labada dowladood iyo sidii lagu xoojin lahaa inay mar walba xiriirkooda wanaagsanaado, maadaama dowladda Qatar la leeyahay mar walba waxay saaxiib la ahayd dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ururka nabad iyo nolol, Fahad Yaasiin Xaaji Daar ayay saaxiib la ahayd. Laakiin hadda xasan sheekh maxamuud naftigiisa waxaa la leeyahay dowladda Qatar iskuma xumo oo hadda xiriirkooda wanaajinayaan, waxayna iska kaashanayaan iyadoo dhaqaalo fara badan lagu bixin doono abaaraha ka dhacay Soomaaliya. In dowladda Qatar ay soo gaarsiin doonto dhaqaalo iyo waxyaabo kaloo fara badan oo loogu talagalay abaaraha iyo gurmadka. Waxay kale dowladda Soomaaliya ka codsatay in miisaaniyadda iyadana ay ka kabto, maadaama dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay miisaaniyadda ka kabi jirtay muddo dhowr sano ah. Inkastoo la leeyahay waxay ahayd gacanteeda midig ay ku kalsooneeyeen, laakiin hadda xasan sheekh maxamuud waxaa la leeyahay imaaraadka dhankeeda ayuu u leexday. Cabsida ay ka qabaan dowladda Qatar waxaa waaye inuu imaaraadka ka xigsaday, inkastoo dowladaha khaliijka ayagu ay isriixriixayaan oo ninba marka qolada kale ay riixayso. Laakiin hadda waxaa la leeyahay si toos ah dowladda Qatar waxay xiriir ula sameysay xasan sheekh maxamuud, waxaana laga yaabaa dhowaan inay isku soo dhowaadaan, xiriirkoodan ay wanaajiyaan, maadaama muddo fara badan halkaasi xiriirkooda cabsi ay ka jiray inaan labada dowlad xiriir aysan la yeelan karin.
waxaa kaloo iyadan la sheegayaa magaalada Nairobi inay doorasho ka dhici doonto 9 Agost, taasoo iyadana la leeyahay waa doorashadii ugu adkeed maadaama William Ruto oo ka socda UDA iyo ninka kale Samuel Moja la yiraahdo oo asagana ururkiisa Raila Odinga madax u yahay, ayagana halkaas fooda isku saari doonaan. Magaalada Nairobi waxaa leeyahay kambeynka ugu weyn ayaa ka dhacay muddadii 2 maalin iyo 3 maalin lasoo dhaafay, taasoo la leeyahay lama oga cidda qaadan doonto, inkastoo ay laba nin oo aad u waaweyn oo qabiilada ugu waaweyn dalkaas ka dhashay, Raila Odinga oo ka dhashay Jalwada iyo ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta asagana ka dhashay Kikuyada, labada qabiil ugu tirada badan uguna quality badan ayaa isku dhinac jira leeyahay. Marka ninkan asagana wuxuu ka dhashay qabiilka la yiraahdo Kalenjin, asaga inkastoo leeyahay dadka qaar Kikuyada ayagana way taageersan yihiin, laakiin 100% ma taageeradiisa. waxaa leeyahay marka odayga Raila Odinga waxaa laga yaabaa inuu meel cidla ka helo oo madaxweynaha dalka Kenya ka noqdo dhowaan. hal maalin ayaa naga xigto, waxaa laga yaabaa leeyahay inuu noqdo madaxweynaha dalka Kenya, iyadoo inkastoo ay leeyihiin dadka qaar waxaa daah gadaashiis ka maamulaya Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha hadda xilka hayo, kaasoo ay ka hartay xilkiisa muddo 1 maalin ah. 1 maalin kadibna Uhuru Kenyatta meesha uu ka bixi doono, inkastoo leeyahay wuu soo laaban doonaa meel dheer ma jiro. daah gadaashiis maadaama uu ka maamulayo waxaa laga yaabaa inuu ra'iisul wasaare awood leh inuu iska dhigo, maadaama sharcigu u ogolaan inuu mar labaad madaxweyne isku soo sharaxo. taas ayaana ka dhigayso inuu Raila Odinga la safto, odagana gadaal oo ka maamulo, kadibna oo ra'iisul wasaare awood leh oo ka noqdo wadanka. waxaa la leeyahay dadka ma jecla in Uhuru Kenyatta oo mar labaad kusoo noqdo siyaasadda, maadaama dhaqaalaha wadankaas uu dib hoos u dhacay muddadii 10 sano ahayd oo maamulaya Uhuru Kenyatta, iyadoo la leeyahay xiriiradii dowlado fara badan oo xiriir la lahaa madaxdii asaga ka horeysay oo ka mid ah Moi Kibaki oo dhaqaalaha kor u soo qaaday. waxaa la leeyahay ninka hadda Uhuru Kenyatta la dhaqaalaha hoos ayuu u dhigay, inkastoo asaga ganacsi fara badan oo meesha ku leeyahay. ninka soo saaro caanaha Brookside iyo caanaha wadanka laga isticmaalo lo'da dhanba ninka iskale waa madaxweynaha dalkaasi. haddii la yiraahdo xagga dhaqaalahana waa madaxweynaha oo afraad ee Afrika ugu dhaqaalaha badan. marka hantida asaga ayaa tacbada leeyahay, laakiin dadka kuma faa'iido qabaan maadaama uu asaga si shakhsi ah akoonadiisa lacagta ugu gurto. dowladda China oo ayadana xiriir la lahayd dowladda Kenya waxaa leeyahay waxay ku leedahay lacag balaayiin dollar ah. marka madaxweynaha soo baxo cabsi ayaa loo qabaa maadaama dowladda lagu leeyahay dhaqaale fara badan. dowladda China ay leedahay aniga dekada Mombasa inaan maamulno ayaa diyaar u nahay, maadaama aan lacag fara badan ku leenahay. sidii aan lacagta nagu soo ceshan lahayn, maalgashi fara badan iyo dhaqaale fara badan ay halkaas ku sameeyeen ayaa waxaa leeyahay dowladda miisaaniyadeeda muddo bil walba waxaa lagu kabi jiray $1 milyan. taas waa midda cabsida keentay. marka hadda waxaa leeyahay mar ka dambeysa waxaa soo tarayso in cabsida laga qabo dhaqaalaha wadanka Kenya sidoo ahaan doono, maadaama madaxweyne cusub oo soo geli doono. marka dadka waxay leeyihiin Raila Odinga uu soo galaa meel cad ayuu ka helaa, ku yaala jirto xilkiisa banaanka waaye, shaki kuma jiro. dadka qaarna waxay leeyihiin Ruto ayaa meesha ku jiro oo xaaladda sidii hore ma aha. marka isjiid fara badan ayaa jiro. ugu dambeyn waa ogaan doonaa meesha wax ku dhamaadaan. waxaan idin soo gudbin doonaa wixii warar oo dib nooga soo kordho. waxaan idinka codsanaynaa YouTube-kana subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta nala wadaagtaan. tan iyo kulantadeena dambe oo xiiso leh. sidaas iyo nabadgelyo.